waxa aynu dhammaanba halkan ku soo qaadan doonaa taariikhdii cabdirashiid cali sharmaake waxaana idiin soo jeedin doonaa aniga oo libaax barqiya ah. allah ha u naxariista ee madaxweynihii labaad cabdirashiid cali sharmaake wuxuu ku dhashay degmada xaraar dheere ee gobolka mudug sanadkii 1919 wuxuu dugsiga qur-aanka iyo waxbarashadiisa dhameeyey sanadkii 1936 wuxuu bilaabay inuu noqdo ganacsade kadibna ka shaqeeya howlaha civil serving maamulkii talyaaniga ee maxmiyadda. wuxuu noloshiisa ku qaatay wixii intaa ka dambeeyay magaalada muqdisho. wuxuu ka mid noqday ururkii Soomaaliya SYL waxyar kadib markii la aasaasay sanadkii 1943 wuxuuna ku biiray maamulkii Ingiriiska ee Somali British Administration. wuxuu waxbarashadiisii dugsiga sare ee dhamaystay 1953 isagoo oo weli ka shaqeynaya civil service. wuxuuna helay course scholarship ah oo dalka Talyaaniga ah gaar ahaan jaamacadda University of the Roma halkaas oo uu ka qalin jebiyey sanadku markuu ahaa 1958 wuxuuna sanadkaa kadib ku soo laabtay dalka Soomaaliya. kadibna waxaa loo doortay inuu noqdo xubin ka tirsan golihii lagu magacaabi jiray SYL. la socda qaybaha dambe haddii eebaydmo insha Allah.